maanta tarjumi doonaa asxaab badanna iga soo codsadeen qiso cajiib ah. Fanaan caan ah oo horay u ahaa Christian balse Ilaahay amarkiis qaatay diinta Islaamka. Waxaa laga qaaday waraysi waxa uuna ka hadlayaa ka hor diinta Islaamka sidoo u noolaa iyo kadibba. Waxaan tarjumi doonaa waraysigaasi. Markasta oo su'aasha la weydiiyo waxaan dhihi doonaa waxa la weydiiyay. Markasta oo su'aasha ka jawaabayna waxaan dhihi doonaa waxa uu yiri. Daawasho wacan muuqaalkana like saar. Assalaamu calaykum walaalkay John. Waa mahadsantahay inaad noo timid. Waan bilaabanaynaa. Waxaan kula yeelan doonaa waraysi. Balse marka hore waxaan rabaa inaan ogaado waa kuma John. Waxa uu yiri magacaygu waa John. Waxaan noqday Islaam 2008. Ka hor Islaamka waxa ahaa fanaan. Sidoo kalena waxaan baranayay Diamondka. Waxaana ka shaqaynayay qaaradda Afrika. Waxaana ka soo jeedaa Manchester, magaalada caanka ah. Halkaas oo aan ka dhigtay iskuulkayga iyo jaamacaddaba. Waxaa la weydiiyay sidee ahayd noloshaada diimeed? Maxaad aaminsanayd Islaamka ka hor? Markii aan yaraa waxaa lagu soo barbaariyay Christian. Sidoo kalena waxaan aadi jiray kaniisadda. Sidoo kalena muusigada waan ku jiray oo waxaan kaniisadda ka tumi jiray muusigada. Markaan soo gaaray 17 sano waxaan bilaabay inaan heeso. Waxaan ka heesi jiray goobaha ciyaaraha, kalaabyada iyo maraakiibta quusta. Hammigayga igu weyn waxa uu ahaa inaan noqdo fanaan caan ah adduunka dhanna laga yaqaano. Waqtiga dheer aan ku jiray heesahani waxaan dareemay inaan ka gaaray heer, inaan gaaray meeshii aan rabay. Waxaan xilliga isweydiiyay inaad halkan soo gaarto waxaad ku bixisay juhdi iyo waqti dheer. Laakiin ugu dambeyntii meeshii ugu sareysay ayaad joogtaa. Ma noloshaada inta ka dhiman heesa ayaad ku sii jiri doontaa? Su'aashaasi ayaa iga guuxaysay mar walba. Taas ayaa sabab weyn u ahayd inaan u soo wareegsado dhanka ganacsiga. Waxaan bilaabay inaan daraaseeyo Diamondka. Waxaan u soo wareegsaday qaaradda Afrika. Waxaa la weydiiyay waa maxay wixii sababa inaad su'aal ka keento diintaada? Ma dhacdo ayaad la kulantay? Goormay ahayd nala wadaag? Waxa uu yiri waa su'aal fiican. Waxaan xasuustaa markii aan jiray 7 sano. Waxaan aaday kaniisadda oo maalintii Axad la aadi jiray. Waxaana la weydiiyay qof kastoo naga mid ah inuu qoro hees ku saabsan Allah. Heestaydu waxay ku saabsaneed Jesus iyo Allah. Weli waa xasuustaa erayada laakiin ma rabo inaan hadda qaado. Waxaan xasuustaa baadarigii ka shaqaynayay kaniisadaasi. Waa u yimid waxa uu iga qaatay warqadii aan ku qoray heesta. Heesta aan qorayay waxay ahayd Jesus iyo Allah. Waa uu tirtiray waxa uuna ku bedelay Jesus waa Alle. Aad ayaan ula yaabay baadarigii. Adigu qiyaas ahaan waxaan jiray 7 sano. Laakiin arintaas waxay ahayd baraarug weyn. Markaas ayaan dareemay inaanan aaminsanayn inuu Jesus yahay Alle. Wixii aan ka aaminsanaa Jesus waxa uu ahaa inuu yahay adoon Alle, nabi uu Alle soo dirsaday, laakiin marnaba aan aqbali doonin inuu yahay Ilaahay. Markaas ay ahayd markii aan su'aal ka keenay diinteyda. Waa maxay diinta saxda ah? Conceptiga aan Alle ka aaminsanaa xilligaasi waa tan aan hadda ka aaminsanahay. Ma qiyaasi kartid awoodaha Alle. Alle waa hal. Asiga ayaa abuuray adduunkan oo gacantiisa ay ku jiraan. Waa sababta aan marnaba u aamini waayay inuu Jesus yahay Allah. Markaas aad ayaan u yaabay anigoo da'yar oo aad u da'yar ayaan su'aal ka keenay diin ay raacsan yihiin saaxiibaday, qoyskayga iyo dhammaan bulshadayda. Way isku kay qaba weysay laakiin indhaha ayay ii furtay. Waxaa la weydiiyay goorma ahayd markii kuugu horeysay aan maqashay Islaam? Waxaan dhihi karaa markii ugu horeysay aan maqlay Islaam waxay ahayd 9/11. xilligii diyaaradaha ay weerarka ku qaadeen daaraha dhaadheer ee Mareykanka. Galaas ayaan ku jiray. Waxaan arkay macalinka oo kombiyuutarkiisa ka fiirinaya dhacdadii markaas ay dhacday. Waxaan maqlayaa Muslim ayaa weerar ku qaaday daaraha dhaadheer ee ganacsiga ee Mareykanka. Waxaan imid guriga si aan u daawado wararka. Waxaan xasuustaa Mareykanka iyo wadamada kale markay aadayeen Ciraaq iyo Afghanistan aad ayaa ugu farxay. Waxaan lahaa qabta Islaamkani cadowga ah. Waxaan u haystay diinta Islaamka inay tahay kaliya diin argagixis ah. taas ay ahayd bilowgii ugu horeeyay aan ka arko ama aan maqlo Islaam. Waxa la weydiiyay waa maxay sababta ay diinta Islaamku noqotay diin ku soo jiidatay. Marka hore waxaan bilaabay inaan Islaamka baaro, kana baaro YouTube-ka. Waxaan daawo jiray muuqaalo kala duwan. Waxaan u safray dalka Senegal ee qaaradda Afrika. Dadka aan ka warheynin, Senegal waa dal Muslim ah. Markii aan tagay Senegal, waan ka baqay Islaamka oo weli waxa maskaxdayda ku jiray weerar, argagixiso iyo dagaal. Laakiin Senegal qalbiga ayay ii furtay. Shayga ugu horeeyay aan ogaaday ama aan bartay waxa uu ahaa inay jiraan Afrikaan Muslimiin ah. Arintaasina way xiiso gelisay oo waxaan isweydiinayaa sidoo halkan Islaamka ku yimid. Inta aan joogay Senegal, waxay markii ugu horeysay aan maqlo aadaanka salaada. Runtii waxaan ka helay sida ay iskugu wacayaan salaada. Waxaan rabay inaan aad u fahmo. Waxaan rabay inaan fahmo macnaha aadaanka. Waxaan la kulmay Muslimiin badan. Waxaa jira wiil dhalinyaro ah oo ka shaqeynaya hotel. Waxa uu igu casuumay gurigiisa. Asiga ayaan la joogaa muddo. Waxa uu ii kaxayn jiray aroosyada Islaamka ay dhiganayaan. Sidoo kale
janaasada islaamka markuu qofka dhinto sida loo duugayo. waxaan arkay asiga iyo hooyadiis iyo qoyskiisa oo isla dukanaya, cuntada isla cunaya, dhulka fadhiya. arrimahan oo dhan oo aan hore weligii u arkin aad ay cajab geliyeen. waxaa la weydiiyey xilligaas niyadaada ma soo gashay inaad islaam noqoto? weli ma dareemaynin inaan ku qancay diinta islaamka, inkastoo aan ka helay dhaqanka, inkastoo aan ka helay waxyaabaha aan la kulmay, laakiin iguma filnaynin arrintaas inay iga dhigto qof muslim ah. culture ahaan ama dhaqan ahaan waxaan ahaa Christian, laakiin waxaan isku dayay inaan raadiyo dhibaatooyinka islaamka uu leeyahay, sidoo kale inaan dooda la sameeyo muslimiinta. sidoo kale waxaan research ku sameeyay ama baaritaan ku sameeyay islaamka. mar walba oo aan arko fariinta oo sida qur'aan kariimka aad ayaan ula sii dhacayay oo aan ka helayay. waxaan go'aansaday inaan diinta islaamka fursad siiyo maadaama Afrikaanta muslimiinta ee Senegal joogay ay isku dayeen inay baraan diinta. markii aad Senegal joogtay ma jiraan sheekooyin aadan ilaawi doonin? waxaan jiray 18 sano ka hor 5 sano intaan islaamin. intii aan la joogay walaalkay muslimka ah ee Senegaleeska ahaa gurigiisa, ayadiis ayaa dhimatay oo jirtay 105 sano. aad ayuu u ooynayay. waxaan soo fariistay dhinaciisa oo waxaan isku dayay inaan dejiyo. waxa uu yiri uma ooynayo inay dhimatay oo waxa ay gali doontaa jannada insha Allah. waxa ay qof muslim ah, laakiin waxa rabay inay ku duceyso si ay u noqoto qof muslim ah. hoos ayaan waxaan ka dhahay, muxuu ku hadlayaa? ma noqon doonto qof muslim ah. kor uma dhihin, laakiin niyada ayaan ka dhahay. laakiin aad ay ii taabatay arintani oo qalbigayga ay jilcisay. oo waxaan isweydiiyay, maxay muhiim ugu tahay qofkani inaan islaamo? uma ooynayo inuu ayadiis waayay, ee wuxuu u ooynayaa inay ayadiis aysan helin fursad ay igu duceyso si aan u noqdo qof muslim ah. markaas waxaan isdhahay, wow, ninkan ayaa haysta diinta saxda ah. waxaa la weydiiyay, sidee ku aqbashay islaamka? waxaan aqbalay islaamka markaan jiray 23 sano. waxaan sameynayay baaritaan dheer, laakiin sidoo kale ma rabin inaan ka baxo muusigada iyo baashaalkii wixii aan u aqaanay oo aan ku jiray. laakiin sidoo kale ma aanan ogan xitaa inaan noqon karo islaam, oo waxaan u haystay islaamka in lagu dhasho kaliya. kadib markii aan YouTube-ka ku arkay iyo meelo kaleba muuqaalo dad u dhashay dalka Mareykanka iyo Ingiriiska oo noqday islaam, markaas ayaan waxaan isdhahay, wow, adigana islaam waa noqon kartaa, oo islaamka ma ahan kaliya wax lagu dhashay ee waa la noqon karaa. waxaa la weydiiyay, yaa kugu casuumay islaamka? waxa aan joogay Masar. waxa aan galay masaajid. waxaan walaalka codsaday inuu baro sida loo dukado. waa iga diiday. waxa uu dhahay, ma tiid qof muslim ah. waxaan dhahay, waan duceystaa oo waan soomay. waxa uu dhahay, ma kugu filno oo waxa u baahan tahay in lagu qabto shahaadada. waxaan dhahay, waa maxay shahaado? wuu ii sharxay. sidaas ayaana shahaadada la igu qabtay oo aan ku noqday qof muslim ah. waxaan dareemay culays weyn oo garbahayga saarnaa in laga qaaday. waxaan sidoo kale dareemay inaan ahay qof nadiif ah. alxamdulillah, sidaas ayaan ku noqday qof muslim ah. waxaan ku laabtay dalka UK. waxaan isku dayay inaan raadiyo masaajid, laakiin waan cabsaday oo weli waxa maskaxdayda ka guuxay argagixiso. waxaan helay meel iskuul u eg, laakiin waxay ahayd masaajid. markii aan galay qaybta reception-ka qaybta ka dambeysa, waxaa taagnaa nin British ah oo cadaan ah oo muslim ah. runtii aad ayaan ula yaabay oo waxaan isdhahay, markaa masaajid gasho kaliya waxaad arkaysaa Pakistan iyo Carabs, laakiin runtii aad ayaan ugu farxay. runtii waa uu caawiyay. waxa uu baray Faatixada, sida loo dukado iyo suuradaha yaryar. sidoo kale masaajidka waxaa jooga walaalo kale oo muslimiin ah oo ila fariisanayay oo i barayay diinta islaamka oo ila qaxweynayay. runtii aad ay ii soo dhaweeyeen. waxaa la weydiiyay, sidee uga falceliyeen asxaabtaada iyo familigaaga inaad noqotay qof muslim ah? waxa uu yiri, dadku waxay u haysteen wax laab la kac ah oo waxay isdhahayeen markuu weynaado waa isbedeli doonaa. laakiin alxamdulillah 13 sano kadib waxaan ahay wali qof muslim ah. waxaa la weydiiyay, ma jiraan wax caqabadaha aad la kulantay markaad noqotay qof muslim ah? waxa uu yiri, waxa ugu horeeya ee dhibay waxay ahaayeen salaada. runtii haddaadan la qabsanin salaada dukashadeeda, marka koowaad waxay noqon kartaa wax aad u dhib badan. ma la qabsanin inaan waqti ku bixiyo 5 waqti oo dukasho ah. waxaan markaasi nafsadeeda ka bala qaaday inaanan jiifan doonin habeen kasta anigoona dukanin 5 salaadood ee dhaaftay. bal qiyaas adigoo dukanaya dhammaan salaadihii laga rabay maalintii habeenkii oo dhan oo aad jimcisay oo aad dukanaysa salaada ka hor. runtii arrintan lama okolo diin ahaan waa xaraam. islaamka ka hor uma maleynayo inaan lahaa wax hadaf ah oo waa iska noolaa maalin walba maalinta ku xigta. markaasna waxaan ogaadayba inay dhib ahayd in habeenkii aan dukado dhammaan salaadihii dhaafay, oo ay qurux badan tahay ama ay ii fududeed in salaad walba waqtigeedii aan ku dukado. markaas ayaan bartay inay sidaasna sax ahayd, diinta islaamkana ay qabto in salaad kasta waqtigeeda lagu dukado. waxaa la weydiiyey, waa maxay waxyaabihii aad uga heshay dabeecadaha xabiibkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam? wuxuu ku jawaabay, waa su'aal aad u fiican. markii aan fiirino xaqiiqooyinka nabiga sallallahu alayhi wasallam 1400 sano ka hor, wuxuu yimid kaligiis asigoo fariin Allah subhanahu wa ta'ala ka wado. sidoo kalena alla siiyay sharaftii ugu weyneed ee qof bini aadan la siin lahaa. fiiri saameynta uu ku yeeshay adduunka, dadkii raacay markii uu noolaa ilaa hadda
oo isku dayay mar walba inay raacaan sunnadiisa. runtii waxaan lacagteena iyo diinteena ku bixinaa diinta. runtii waa iimaanka aan ka dhaxalnay nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam. ka waran muslimiinta xilliga nabiga uu noolaa ilaa hadda adeecaya fariimaha iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam, sidoo kale adeecaya ama qirsan inuu yahay nabi ka socda Allah subhanahu wa ta'ala. markii laga hadlay nabiga Muhammad sallallahu alayhi wasallam iyo waxyaabihii uu sameyn jiray iyo tan ugu muhiimsan fariinta uu waday ee quraanka ah, sidoo kale xalka oo uu waday bini'aadanimada iyo adduunka oo dhan. sidoo kale markii la fiiriyo dhanka shariicada islaamka iyo hanuunka, runtii waxaad ogaanaysaa markaad barbar dhigto diimanka kale inay tahay diinta kaliya xalka u ah aadanaha iyo bini'aadanka iyo adduunka oo dhan. waxaa la weydiiyey maxay ahayd hadafka aad nolosha ka lahayd ka hor iyo kadib islaamka. waxa uu yiri hadafkii rajada aan leeyahay waxay tahay inaan Allah subhanahu wa ta'ala arko, sidoo kale jannadiisa aan galo, ka mid noqdo kuwii jaanis ku helay inay arkaan abuurahoodii Allah subhanahu wa ta'ala. sidoo kale aan la fariisto nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sidoo kale aan la fariisto nabiyullah Ciisa iyo dhammaan nabiyadii Allah subhanahu wa ta'ala. islaamka ka runtii oo maleynayo inaan lahaa wax hadaf ah oo kaliya waan iska noolaa maalinba maalinta ku xigta. waxaa la weydiiyey haddaad fursad u heleed inaad la hadasho dhammaan dadka aan muslimka ahayn maxaad u sheegi lahayd. waxa uu yiri waxaan ku dhiirigelin lahaa ama kula dardaarmi lahaa inay islaamka fiiriyaan, wax ka bartaan, baaritaan sameeyaan, qalbiyadoodana ay furaan, sidoo kalena iska dhaafaan adayga badan, iskuna dayaan inay wax badan bartaan. halkaas waxaan kusoo gabagabeynaynaa qisadan. waxaa idinka codsanaya muuqaalkan inaad like saartaan, asxaabteena la wadaagtaan, page-kana like saartaan. waxaan rabaa idin weydiiyo ma ka hesheen muuqaalkan? haddaad ka hesheen ma soo badiyaa ila wadaaga. waxaan aaminsanahay muuqaaladan oo kale micno weyn idin sameynayaan, qalbiyadiina iyo iimaankiina inay ku kordhi doonaan hadduu Ilaahay raali ka noqdo. waxaa idinkula dardaarmaa cabsida Alle. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.